wiilkana sawirkiisa aragtaan waxaa lagu magacaabaa Grant Amato, wuxuuna ahaa mid soo gala live oo ciyaara geemam kala duwan. muuqaalkan kalena waa isla wiilkaas oo taagan maxkamadda kadib 10 bilood oo lagu waday baaritaan aad u adag, iyadoo intaa kadibna lagu xukumay mid ka mid ah ciqaabaha ugu adag ee cid lagu xukumo. haddaba sidaa ayuu arrinku ku soo gaadhay meeshan, maxayna tahay qisada wiilkan aan ku soo sheegnay halka hore oo qisadiisu ay qabsatay dhammaan social mediaha. ila soo daawada ilaa dhammaadka si aynu isula ogaano qisadan oo dhammaystiran. qisada maanta ka hadli doona waxay ka dhacday dalka Mareykanka, waxayna bilaabatay sanadkii 1989. waqtigaas wiil lagu magacaabo Grant ayaa wuxuu ku dhashay magaalo yar oo ku taala gobolka Florida. qoyska uu ka soo jeeday Grant waxay ahaayeen qoys iska degan oo lacag wanaagsan iska haysta. aabihii waxa lagu magacaabay Chad, hooyadiina Margaret. wiilkan lagu magacaabo Grant waalidiintii waxay ahaayeen qaar u keena wax kasta oo u baahdo isaga iyo labadiisa walaal, sababtaa wuxuu la walaalahaa laba walaala oo kale. qoyskanna waxaa lagu yaqaanay jacaylka ay jecel yihiin hubka, iyagoo ahaa qaar aada meelaha lagu tijaabiyo hubka noocyadooda kala duwan. qoyskanna xidhiidhka u dhexeeyay sidoo kale wuxuu ahaa mid wanaagsan oo aanay wax dhibaataa dhexdooda oolin. haddeen ka hadalna dhanka waxbarashada ee qoyskanna, Grant oo ah qofka uu ku saabsan yahay muuqaalkeenan iyo walaalkii Cody waxay doorteen inay isku wax bartaan, labadoodubana waxay rabeen inay noqdaan neeras. Codyna wuu ku guulaystay arrinkaas oo wuxuu ka helay shaqo wanaagsan neeraska, halka Grant uu ku guuldaraystay inuu ka gudbay imtixaankii uu ku noqon lahaa neeras. markii uu ku guuldaraystay imtixaankaasna, maadaama uu wax ka yaqaanay neeraska waxa qaatay cisbitaal yar oo shaqaaleysiiyey. taariikhdu markay ku beegnay sanadkii 2018 oo ahayd markii Grant da'diisu ay maraysay 29 sano, waa laga eriyay Grant shaqadii oo wax lagu soo eedeeyay inuu ka dhex sameeyay waxyaabo halis badan cisbitaalkii uu ka shaqaynayay dhexdiisa. arrintaas lagu soo eedeeyayna waxay ahayd in Grant uu siiyey bukaanka qaarkood daawooyin aan ahayn qaar loo qoray. macnaha wuxuu soo galay meel ay mamnuuc tahay in la soo galo oo cisbitaalka dhexdiisa, waxaana laga arkay kamarooyinka Grant oo halkaas ka qaaday daawooyin una adeegsaday bukaan isagoon dhakhtar u soo qorin. arrinkaasina waa arrin khalad ah oo daawooyinkani qofka bukaanka dhib ay u keeni karaan haddii dhakhtarku aanu siin. sidaa darteed ayaa looga saaray ninkaas shaqadii. marxaladaasina waxay ahayd mid Grant ku adag, sababtoo wuxuu ahaa mid haysta meel dhaqaale uu ka soo galo oo si fiican ay u kala socotay noloshiisu. hal marna wuxuu is arkay isagoo meel cildaa taagan, xitaa ninkan isagoo lahaa khibrad wanaagsan oo uu ka kasbaday intii uu shaqadaas waday. haddana khaladkaas uu sameeyey dartii suurtagal maaha inuu shaqo meel kale ka helo, sababtaa waxaa ku taala dhibic madow. sidaa darteed Grant wuxuu bilaabay inuu raadiyo majaal kale uu ka shaqeeyo, waxaana ku soo dhacday fikrada inuu sameeyo layfaf uu ka soo gelaya website-ka Twitch. markii uu soo bandhigay fikradaas qoyskiisii way ku dhiirigeliyeen oo way ku garab istaageen. waalidkiina waxay u soo gadeen dhammaan agabka uu u baahan yahay si uu u sameeyo layfkaas. 11 bishii Julaay ee sanadkii 2018 ayuu soo galay layfkiisii ugu horeeyay. muuqaalkanna waa qayb yar oo ka mid ah layfkiisaas. akoonkaas uu ku leeyahay meeshaas ninkaasi wuxuu ahaa mid ku qoray xog ku saabsan naftiisa, oo wuxuu ku qoray halkaas inuu yahay mid aad u yaqaana ciyaarista geemam kala duwan oo ay ka mid yihiin Call of Duty ama Fortnite, laakiin dhab ahaantii muu ahayn mid aad u yaqaana ciyaarahaas. halkanna waxaan ka hadli doonaa arrin si looga xishoonayo laakiin saameyn aad u weyn ku yeeshay nolosha ninkaas. ninka lagu magacaabo Grant maadaama uu ahaa mid waqti dheer ku qaatay internetka dhexdiisa, wuxuu helay website ay dumarku soo galaan oo layfaf ay ka soo galaan, halkaasna ay ku soo bandhigaan jidhkooda. arrinkanna gabdhahaas waa u caadi oo waxa ka soo gala lacag, waana shaqadooda waxaasi. Grantna wuxuu ka dhex helay website-kaas gabadh lagu magacaabo Sylvie, taasoo soo jiidatay dareenkiisa, wuuna galay layfkii ay gabadhaasi ku jirtay. majaalka noocanana haddii qofku uu galo waa inuu lacag bixiyaa si uu u daawado waxyaabaha halkaas ka dhex jira. haddii uu barto qofkuna balwadayay ka noqonaysaa wuxuu ku bixinayaa lacagtiisa oo dhan ilaa uu eber ka noqonayo. Grantna wuxuu galay layfkii gabadhaas lagu magacaabay Sylvie, wuxuuna siiyey lacag badan.
wuxuuna ku bixiyey halkaas dhammaan lacagii uu kaydsanaa ee noloshiisa oo dhan uu kaydsanayay. kadib markii uu dhammeeyey lacagtii uu kaydsanayna wuxuu soo jeestay inuu qoyskiisa lacag ka xado. sidoo kale waalidkii ayaa wuxuu ka dalban jiray lacag oo wuxuu ka qaadan jiray maalin kasta lacag gaadhaysa $600 isagoo been u sheegaya oo kule $600 waxaan ku horumarinayaa shaqooyinka aan qabto iyo layfafka aan soo galo. meesha uu ku bixin jiray lacagtaasna waxay ahayd wuxuu ahaa mid been u sheegay gabadhii uu leefkeeda geli jiray ee Sylvie oo ku dhaha waxaan nahay wiil dhalinyaro oo milyaneer ah. beentaasi uu sheegi jiray gabadhaasina iyadu waxaanay samaynaysaa waa shaqadeeda oo way ka faa'iidaysanaysaa fursad kasta oo u timaado oo ay ku helaysa lacag. maadaama Grant uu lacag bixinayana isaga ayay ka guri jirtay lacagta oo wax kasta uu rabana way u samayn jirtay. wuxuu ku bixin jiray lacag gaadhaysa $200 kaliya inuu gabadhaas kula hadlo video call. sidoo kale $100 si ay gabadhaas sawirkeeda ugu soo dirto si weynuna gabadhaas ugu tacalluqay. gabadhaasina iyadu ninkan wax jacayla uma qabta gabi ahaanba sababtoo ah shaqadeeda ayaa ah inay internetka isku dhex iibiso. muddo 3 bilood gudahoodna wuxuu siiyey gabadhaas lacag gaadhaysa $100,000. lacagtaasna wuxuu ka xaday walaalkii iyo qoyskiisa. sidoo kale hub ay lahaayeen qoyskiisu ayuu xadi jiray uu geyn jiray suuqa kadibna uu soo iibin jiray. qoyskiisina run ahaantii arrinkaasi wuxuu u dhibaateeyey dhaqaale ahaan sababtoo ah lacag gaadhaysa $100,000 oo 3 bilood lagu bixiyey. qoyskan waxay ku ahayd dhibaato iyadoo arrintaasi ay jirtana maadaama qoyskan ay ahaayeen qoys midaysan oo isjecel. waalidkii dambiile kamay dhigin Grant aabihiina markii uu arkay lacagta intaas leeg ee wiilkiisu uu khasaariyey wuxuu go'aansaday inuu shaqadiisa sii wado oo aanu ka fadhiisan shaqada isagoo haddana gaadhay waqtigii uu shaqada ka fadhiisanayay. wuxuuna isiri Grant waa wiilkaygii uuna khaldamay aniguna waalidkii ayaan ahay oo waa inaan qariyaa khaladkiisa oo ansaxaa. dhammaadkii sanadkii 2018 waxaa jiray xoogaa isbeddel oo ku dhacay Grant oo walaalkiisii ka weynaa ee Cody ayaa wuxuu kaxeeyey walaalkii dalxiis dalka Japan. labadoodiina waxay dalxiis u wada aadeen Japan waxaana sii raacay sidoo kale saaxiibkood. macnaheedu ay jirtay khasaare lacageed ee weyn ee qoyskiisa uu geliyey Grant. haddana walaalkii wuxuu rabay inuu isbeddelo uu wanaagsanaado jawigana uu ku soo beddesho dalka Japan. laakiin Grant markii uu aaday dalkaas Japan wuxuu bilaabay inuu u diro sawiradiisa iyo muuqaaladiisa oo halkaas iskaga duuba gabadhii Sylvie isagoo iskaga dhigay inuu keligii aaday dalkaas Japan oo milyaneer yahay. maalin kastana wuxuu ahaa mid la hadla gabadhaas. maalintaan uu la hadalna wuxuu dareemi jiray muruga iyo niyad jab. wuxuuna gaadhay ninkani heer uu saaxiibkiisa ay isu raaceen safarka uu ka xada kaadh bangigiisii si uu lacag u siiyo gabadhii uu la hadli jiray ee Sylvie kadibna ay ula hadasho. arrinkaasna waa la ogaaday oo markii uu ku soo laabtay dalkiisii Maraykanka qoyskiisa ayaa loo sheegay arrinkiina wuxuu noqday mid aan loo dulqaadan karin oo dhammaan qoyskiisii waxay ahaayeen qaar ku xanaaqsan Grant. waqtigaasna Grant wuxuu go'aansaday inuu iskaga tago gurigoodii wuuna ka tegay gurigii laakiin hooyadii iyo walaalkii ayaa u cabsaday oo ciidankii wargeliyey inuu qarsoomay Grant. tilefoonkana aanu ka qabanayn oo cadho uu kaga baxay guriga. waqtigaasna wuxuu soo diray Grant hooyadii fariin uu ku leeyahay hooyo dhibaatooyin badan ayaa ku wareegay maskaxdayda oo ay tahay inaan xal u helo. laakiin nasiib wanaag waxaa la helay Grant 2 maalmood kadib markii uu ka tegay guriga isagoo nabad qaba oo aanay wax dhibaato gaadhin. dhibaatooyinkaas ka dhex dhacay qoyskana sababtooda wuxuu go'aansaday aabihii qoyskani inuu isugu wada yeedho dhammaan qoyska oo ay wada yeeshaan shir. aabihiina wuxuu u sheegay Grant haddii uu doonayo inuu guriga sii joogo oo uu ku sii noolaado gurigan inay qasab ku tahay inuu aqbalo shuruudaha uu soo bandhigayo. shuruudaasna waxaa ka mid ahayd in Grant uu aado meel dadka nafsad ahaan u buka lagu daaweeyo. lacagta lagu daaweynayo meeshaas qofkana waxay heshay $10,000. laakiin iyadoo sidaas ay tahay aabihii wuxuu ku yidhi lacagta aniga ayaa bixinaya kaliya adigu meeshaas aad oo isoo daawee. Grantna wuu aqbalay arrinkaas uuna aaday meeshaas la isku daaweeyo. meeshaasna waxay ahayd meel u gaar in lagu cilaajiyo dadka sida ninkan oo kale balwadaa xun leh oo ah in laga daaweeyo ninkan jacaylka weyn ee uu qaaday gabadha jirkeeda ku dhex gaday internetka dhexdiisa. aabihiina isagoo isku dayay inuu wiilkiisa badbaadiyo wuxuu gaadhay heer uu xitaa la xidhiidha gabadhii oo u sheega xaqiiqada isagoo ku yidhi Grant milyaneer ma aha lacagaha uu ku siiyana wuxuu ka soo xaday qoyskiisa
wuxuuna ka codsaday inaanay dib ula hadal wiilkiisa mar dambe. Garaantna wuu soo dhammaystay daaweyntii oo wuxuu ku jiray cisbitaalkaas muddo 60 maalmood ah. Markii uu soo laabtayna aabbihii wuxuu siiyey xeerar ay tahay inuu ku socdo inta uu guriga joogo. Waxa ugu horreeyay xeerarkaas inuu shaqo raadsado nooca ay doontaba ha ahaatee. Sidoo kale marka la gaadho 12 habeenimo wixii ka dambeeya waa laga daminayaa internetka guriga. wuxuuna u sheegay si toos ah oo wuxuu ku yiri mar dambe hala hadlin gabadhaas Sylvie. Garaantna wuu ogolaaday xeerarkaas aabbihii uu dhigay. laakiin dhowr maalmood markii uu ilaalinayay xeerarkaas dib ay u bilaabay Garaant dabeecadihiisii hore. wuxuuna u diray fariin dheer gabadhii lagu magacaabayay Sylvie. fariintaas oo kaga cudur daaranaya gabadhaas oo uu ku leeyahay waan kaa raaligelinayaa inaan been kuu sheego waan kugu dhahay waxaan nahay milyaneer. sidoo kale wuxuu ku qoray fariintaas inuu aad uga xanaaqsan yahay qoyskiisa gaar ahaan aabbihii sababtaa wuxuu ku qasbay inuu aado meesha dadka balwadaa xunxun leh lagu daaweeyo. wuxuuna sheegay in aabbihii uu maamulo oo xoog ku haysto. gabadhii Sylvie wuxuu sheegay mar kale inuu aad u jecel yahay. intaa kadibna aabbihii wuxuu ogaaday in Garaant aanu ku dul socon oo uu ka leexday xeerarkii uu dhigay. aabihiina wuxuu go'aansaday taariikhdu markii ku beegnayd bishii January ee sanadkii 2019 inuu ka eriyo Garaant guriga. xitaa waxaa laga saaray gurigii isagoo bilaa moobil oo laga qaaday moobilkiisii uu watay. sababtoo moobilkiisa waxa uu iibiyey waalidkii. wayna ka qaadeen moobilkii kadibna way ka eriyeen gurigii. isagoon haysan wax lacag iyo meel uu aado uu seexdo iyo xitaa meel uu cid kala xidhiidho. waqtigaasna wuxuu galay Garaant xaalad cadha iyo doonis uu doonayay inuu aarsado. sababtaa wuxuu arkayay in qoyskiisu ay ka qaadeen dhammaan xuquuqdii uu lahaa ee uu ku raaxaysanayay waqtiga aadka u dheer. waxay ka hor istaageen inuu la hadlo gabadh ka cuntay wixii lacag iyo maal uu haystay noloshiisana god madow ku riday. laakiin isagu sidaa uma arkayn wuxuuna galay xaalad waaliya. isla maalintaas saacaddu markay ahayd 4:15 meelahaas Garaant wuxuu ku soo laabtay gurigoodii isagoo aad u xanaaqsan. wuxuuna aaday meeshii hooyadii ay joogtay. hooyada oo ahayd waqtigaas 61 jir waxay dul fadhiday kombiyuutar iyadu leedahay. Garaantna wuu soo dhawaaday wuxuuna madaxa ka saaray baaskooladii sitay. kadibna wuxuu ku furay rasaastii hooyadii. hooyadiina waxay ku dul dhacday miiskii kombiyuutarku uu saarnaa. halkaas uuna joogay oo wuxuu ag fadhiyay meydka hooyadii isagoo sugayay inta aabbihii uu guriga ka imanayo. ilaa uu ka yimi gurigii aabbihii oo shaqada ka soo laabtay. wuxuuna soo galay kijadii. markii uu sidaas kijadii u soo galayna Garaant wuxuu ku dhuftay aabbihii rasaastii. isla markiiba wuxuu u dhintay rasaastaas darteed. isagoo sidaas ku dilay labadiisii waalidna haddana weli muu dhargin wuxuuna rabay dheeraad. wuxuuna deydiyay waddo uu adeegsan kara si uu u dilo walaalkii koodiisna. wuxuuna soo qaatay moobilkii aabbihii oo wuxuu ku furay fartiisa. kadibna halkaas wuxuu uga qoray walaalkii fariintaas oo uu ku leeyahay isagoo isaga dhigay aabbihii guriga si degdeg ugu kaalay waxaan doonayaa inaan arrin degdega kaala hadlo. Garaantna wuxuu ahaa mid la jooga meydadkii waalidiintii isagoo sugaya walaalkii koodii inuu guriga yimaado. wuxuuna sugayay laga soo bilaabo 4:15 ilaa 9 habeenimo. 9 markay ahayd ayuu soo galay koodii gurigii. markii uu sidaas soo galayna isagiina wuxuu ku dhuftay rasaastii wuuna dilay. Garaantna sidaa wuxuu ku dilay aabbihii iyo hooyadii iyo walaalkii. intaa kadibna wuxuu agdhigay walaalkii baaskooladuu gacantiisa agdhigay isagoo isku dayay inuu ka dhigo in koodii uu dembigan sameeyey oo uu waalidkii isagu dilay kadibna uu isna isdilay. waqtigaasna Garaant sidii uu rabay wuxuu noqday xor oo wuxuu awood u leeyahay inuu sida uu doono ula hadlo gabadhii uu rabay ee Sylvie. arrinka la yaab kalena wuxuu yahay dhacdadaas kadib markii saacaddu ay ahayd 12 habeenimo meelahaas. ninkani wuxuu aaday meel internet leh wuxuuna la xidhiidhay gabadhii Sylvie. maalintii ku xigtayna waxaa la ogaaday maqnaanshaha walaalkii koodii sababtoo koodii maadaama uu ka shaqayn jiray meel cisbitaal ah oo shaqadiisu ay ahayd mid mar walba joogta waa la tabay. sababtoo wuxuu lahaa dabeecada haddii uu maqnaanayo inuu soo wargeliyo cisbitaalka. markii koodii uu iman waayay shaqadii sidoo kalena uu soo wargelin waayay wicitaankana aanu qabanayn waxay soo wargeliyeen ciidanka oo waxay u sheegeen in koodii aanu shaqadii iman. ciidankiina way soo baxeen si ay u soo baadhaan sababta maqnaanshihiisa. ciidankii waxay aadeen gurigii qoyska koodii iyagoo markay halkaas tageenna ku kalsoomay 3 meyd oo guriga dhex yaala. markiibana qofkii koowaad ee laga shakiyey wuxuu ahaa Garaant sababtoo isaga ayuunbaa ka maqnaa qoyskan.
waxaa jiray wiil saddexaad oo ay walaalahaayeen oo aan halka hore idinku soo sheegay, laakiin wiilkaas waxay ka walaalahaayeen halka aabbaha oo lamu deganeen gurigan qoyskan. intaa kadib ciidankii waxay faafiyeen warka Grant oo ah in la raadinayo nin 30 jir oo wata gaadhi noocaasa. sidoo kale ciidanku waxay baahiyeen in ninkaas ay macquul tahay inuu hubaysan yahay, marka waa in qofkii arkaan uu dhawaan oo uu soo wargeliyo markiiba ciidanka. maalintii ku xigtayna ciidankii waxay ka heleen gaadhigii ninkaasi uu watay oo hor taagan mid ka mid ah hoteelada ku yaalay magaaladaas, waana la soo qabtay markiiba Grant. bilowgiina markii la wareysanayay ninkaasi wuxuu ahaa mid degan oo aanay wax xabsiya ka muuqan, wuuna diiday dhammaan eedaymihii loo soo jeediyey oo wuxuu yidhi cidna maan dilin anigu, isagoo raba in dusha laga saaro dembiga oo dhan walaalkiisii dhintay ee Cody. markii baadhitaanka lagu wadayna ciidanka ayaa waxay soo geliyeen walaalkiisii ay kala bahda ahaayeen. laabta ayuuna geliyey walaalkii, sababtoo ah isagu wuxuu waayay aabbihii iyo qoyskii aabbihii. wiilkiina wuxuu weydiiyey Grant wax xidhiidha maad ku leedahay ficilkan dhacay. Grantna wuxuu ugu jawaabay may waxba maan samayn anigu. ciidankiina ma ahayn caddayn ama daliil adag oo muujinaya in Grant uu falkan sameeyey, iyadoo halkaas laga helay DNA-giisa, laakiin haddana taasi ma ahayn caddayn ku filan, sababtoo ah Grant uu ku dhex noolaa gurigaas oo waqti badan ayuu ku qaadan jiray, sidaa darteed waa wax iska caadiya in guriga oo dhan laga dhex helo DNA-giisa. laakiin baadhitaano qoto dheer markii la sameeyey waxaa la ogaaday arrimo kale. arrimahaas oo ay ka mid yihiin baaskoolada la dhigay meesha yaalay iyo rasaasta qoyskan lagu dilay isku mid may ahayn. taasina waxay muujinaysaa in hubka lagu dilay qoyskani aanu ahayn hubka gurigan laga dhex helay oo uu yahay mid qof uu sitay meeshana laga qaaday. sidoo kale guriga dhexdiisa waxaa laga helay waraaq lagu qoray gacanta oo u eg inuu qoray wiilkii la dilay ee Cody. waraaqdaas oo kula hadlaya Grant oo ku leeyahay waan ogahay in laga eriyay guriga, ku soo laaba guriga waalidku ma ahayn inay guriga ka eriyaan, iyo hadallo kale oo badan ayaa ku qornaa waraaqdaas. laakiin waxaa la ogaaday in waraaqdaas la helay aanu Cody qorin ee Grant uu gacantiisa ku qoray, oo waxaa la isku fiiriyey qoraaladiisii hore iyo qoraalkan. taasina sidoo kale waxay sheegaysaa in waraaqdaas Grant inta uu qoray uu dhigay meesha, isagoo isla halmooday in walaalka uu qoray oo uu ka xanaaqay aabbihii inuu walaalkii ka eriyay guriga, sidaasna uu ugu aaray walaalkii uu aabbihii uu dilay. sidaasay uu islaha loo maleeyo. caddaymahaas dartoodna waa la soo xidhay Grant, waxaana la saaray maxkamadda. maxkamadayntiisaasna waxaa soo xaadiray walaalkiisii ay ka walaala ahaayeen xagga aabbaha, oo ku markhaati furay ninkaasi inuu shaqadiisii waayey oo lacag badanna uu ka xaday qoyskan. waxyaabihii uu sameeyey oo dhanna waa lagu markhaati furay. ugu dambeynna waxaa lagu xukumay ninkan xabsi daayin, iyadoo lagu eedeeyey dilka 3 qof. arrinka la yaab kale ee sina uu cabsida le ee qisadan ku jiraana wuxuu yahay Grant markii la xukumayay ee qaadigu uu ku lahaa adiga ayay kugu caddaatay in qoyskaaga aad dishay. waqtigaas kamay muuqan wax calaamada oo muujinaya inuu ka murugaysan yahay waxa dhacay. taasna waxaa kasii daran markii uu xabsiga galay ninkaasi. wuxuu isku dayay inuu la xidhiidho dadka sameeya filimada si uu sheekadiisa uga iibiyo oo ay uga sameeyaan filim. wuxuuna sheegay in lacag gaadhaysa $750,000 inuu kaga iibinayo xuquuqda sheekadiisa, oo uga sheekaynayo ciddii doonaysa inay buug ka qorto ama ay ka samayso filim. sidoo kale xitaa xabsiga markii uu galay, xabsiga dhexdiisa wuxuu uga soo diray fariin coda gabadhii lagu magacaabayay Sylvia iyadu ku soo riday godka madow, isagoo la waan kuu xiisay waxaana sugayaa inaan codkaaga maqlo. taasina waxay ahayd qisada ninkaas lagu magacaabo Grant. dhab ahaantiina dhibaatadaas qabsatay ninkaasi waa dhibaato weyn oo jirta. qofku haddii uu keligii noqdo oo internetna uu haysto, qofkaasi wuxuu ku dhex jiraa meel miinaysan oo halisa. qofkana waxay gelin karaan arrimahaasi haddii uu barta xaalad halisa sida ninkaas oo kale. ninkaasi wuxuu dilay hooyadii iyo aabbihii iyo walaalkii, haddana kama murugoon gebi ahaanba waxa uu sameeyey. marka adigoo isticmaalaya internetka oo ku qabsanaya howlahaaga, haddana ha ka goyn caalamka kale. guriga ka bax oo shaqo soo qabo, masaajidka aad oo salaada u bax, micnaha isku day inaad cidlada ka fogaato oo aad u soo baxda caalamka kale. intaasi uuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. haylooban hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub. waad mahadsan tahay.